al-shabaab ayaa ku dhowaad 10 ruux oo shacaba waxa ay ku dileen dagaal ka dhacay duleedka degmada Bacaadweyn oo ka tirsan gobolka Mudug. wariyaha nooga soo warrama gobolkaasi Liibaan Cajiib Xaaji ayaa faafahinta warkan inoo soo diray. deegaanka Shabeelle oo qiyaastii 25 kiiloomitir dhinaca bari kaga beegan degmada Bacaadweyn ee koonfurta gobolka Mudug ayaa maanta waxaa ku dagaalamay dadka deegaanka iyo ciidamo ka tirsan kooxda al-shabaab kuwaas oo ka yimid dhinaca degmada Xardheer ee gobolka Mudug. dagaalka ayaa la sheegayaa inuu yimid kadib markii al-shabaab deegaankaasi ay ku dileen mid ka mid ah macallimiinta dugsiyada Quraanka ee ku nool halkaasi, taas oo sababtay in shacabka ay sabaabulaan isla markaana ay rasaas ay kala hortagaan shabaabkii weerar ku soo qaaday deegaankooda. dagaalku ahaa mid saacado badan socday ayaa waxa uu geystay khasaaro isugu jira dhimasho dhaawac oo soo gaaray labada dhinac. inta la xaqiijiyay 7 qof oo kamid ah dadka deegaanka ayaa ku geeriyootay halka ay ku dhaawacmeen 3 kale oo markii dambe dhaawacooda loo soo qaaday dhinaca magaalada Galkacyo, iyadoona sidoo kale shabaabkii weerar ku soo qaaday deegaankaasi uu gaaray khasaaro, balse ilaa hadda lama ogo maadaama markii ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ay ku biireen dagaalkaasi ay ka carareen deegaankaasi kuwaas oo markii dambe ku laabtay wadadii ay ku yimaadeen. gudoomiyaha degmada Bacaadweyn ee koonfurta gobolka Mudug Axmed Daahir oo isagoo ku sugan deegaanka Shabeelle oo la hadlay raadiyaha kulmiye ayaa ka waramay xaaladda deegaankaasi iyo khasaaraha soo gaaray dadka shacabka. khasaaruhu wuu yimaadaa inta badan haddii meesha dagaal ka dhaco khasaaro wuu yimaadaa meesha dagaal baa ka dhacay. dagaalkaas ayagana waxbaa ku gaaray dadkii shacabka ana waxbay gaarsiiyeen marka khasaaro waa ka dhacay meesha ilaa 7 qof ku dhimatay marka weeye dadka hadda anagu aan ognahay oo ay ku jiraan dad barmageyrahi oo dad dhalinyaro ilmo yaryar iyo waayeel iyo macallin quraan ay ka mid yihiin marka dadka noocaas ah meesha ay ku jiraan magaalada u dhashay waxay ahaayeen dadna guryaha jiifeen dadna baadiyaha ka yimaadeen qof walba iyadoo waxba ogeyn oo waagi markuu baryin soo toostay ama yani weysiisanaysay meesha ku jireen aduu waxa weeye dagaal ka dhacay dagaalkaasna ilaahay alxamdulillah markii dambe waa laga guuleystay ayagiina. maxamed axmed cali oo kamid ah odayaasha deegaankaasi ayaa dhinaciisa sheegay inay iska difaacayaan weerar kasta oo kaga yimaada al-shabaab. kullay diinta islaamku waxay dhigaysaa horta qofku naftiisa iyo maalkiisa inuu difaacdo ma garan. ummadaha weeraraan ka mid maahin ama xoolaha dhaca ama soo rogtaan ka mid maahin dadka weerarkaadana ka mid maahin laakiin waxaa go-aan naga ah nafteena iyo maalkeena iyo xoolaheena iyo xeelaheena inaan difaacno. xaaladda guud ee deegaanka Shabeelle ayaa hadda degan waxaana deegaankaasi ku wada sugan ciidamada deegaanka iyo ciidamadii ka socday 12aad ee saldhigga ku lahaa duleedka degmada Bacaadweyn ee koonfurta gobolka Mudug kuwaas oo deegaanka Shabeelle u gaaray siday u caawin lahaayeen dadka deegaanka. Liibaan Cajiib Xaaji, raadiyo kulmiye, Gaalkacyo. gaari shabaab ay ka soo buuxiyeen waxyaabaha qarxa ayaa xubno kooxdaas ka tirsan waxa uu kula qarxay deegaan 25 kiiloomitir u jira magaalada Garbahaare ee gobolka Gado. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa dhameystiray warkan. wararka idaacadda kulmiye ay ka helayso deegaanka Mikareebi oo hoostaga degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gado qiyaastiina u jira 25 kiiloomitir ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi uu ka dhacay qarax ka dhashay gaari walxaha qarxa ay ka buuxiyeen kooxda al-shabaab isla markaana uu dhimasho dhaawac ka soo gaaray inkastoo aan warar rasmi ah laga hayn khasaaraha soo gaaray kooxda al-shabaab. gaashaale Maxamed Cabdi Jaamac taliye ku-xigeenka saldhigga magaalada Garbahaare oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa waxa uu ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen isagoona sheegay in qaraxa xooggiisa laga maqlay magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gado. sidoo kale taliyaha ayaa waxa uu sheegay in deegaanka uu ka dhacay qaraxa ay marba isu bedelayeen gacan ku hayntiisa ciidamada dawladda iyo kooxda al-shabaab. maykaan reebay meesha la dhaho oo soonaha Garbahaare ah waxa ka dhacay qarax weyn. qaraxaas markaa xogtiisii markaan raadinay waxaa naloo sheegay dadka shacabka oo ka agdhow ay noo sheegeen baabuur nimanka shabaabka ah oo xamlayaasha ah ay wateen inuu meeshaas uu ku qarxay ayagana khasaare badan ay ka soo gaartay. khasaarada dhabta ah oo soo gaartay anagu ma xaqiijin karo laakiin qaraxa inuu dhacay meesha qarax weyn uu ka dhacay baabuur ayagu uu lahaayeenna uu ka dhacay. dabcan markaa khasaare badan waa jirtaa laakiin xaqiiqda dhabta anagu hadda weli ma hayno waa soo xaqiijin doonaa. gaarigii
qarax baa ku xirnaa sidaas hadda dadka shacabka saasay cadeynayaan ilaa wuxuu jiraa 25 meelahaas noo jiraa ilaa 25 noo jiraa meelahaas oo nimankan waa warweegaan saldhig ma laho toos oo loogu soo aado meesha markii noogula sheego intagna way ka cararhayaan waana soo wareegnaa niman marka ma aho saldhig rasmi ah oo degan oo hadda loogu soo hagayo nimanku ma laho marka way isdaba wareegnaa maalina annaga imaano markaa kasoo noqonana ayagaa tago sidaas weeyo ma aho wax marka intaad ku soo duusho meesha aad soo diriri karto ma aho waa guurguurhayaan hadba meel bay degayaan waa ka guurhayaan had marka lagu sheego soo aada waa ka tegayaan oo wax sidaasaa weeyo dadkay ku dhex nool yihiin waa dadkay ku dhex milan yihiin dadka shacabkay ku dhex milan yihiin ayagaasay xogta iyo baalkiina la wadaagaan oo isku akeysiyaan oo ka dhex dagaalamaan dhowr mar ayaa sidan oo kale al-shabaab qaraxyo ay diyaariyeen oo ay doonayeen inay ku weeraraan meelaha dawladda iyo dadka shacabka uu ku qarxay waxayna qaraxyadaasi ay iskugu jiraan kuwa gawaarida iyo miinooyinka dhulka la geliyo iyadoona uu kooxda ka soo gaaro qaraxyadaasi dhimashiyo dhaawac taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda Soomaaliya ayaa sheegay in bambooyin ay bastoolado loo sii diyaariyay ay ku dagaalameen qaar ka mid ah maxaabiistii maalintii Isniintii dagaalka ka dhex samaysay xabsiga dhexe ee Soomaaliya. Cabstar Xaaji Cali ayaa warkan faafayntiisa haya. taliyihii hore ee nabad sugidda Soomaaliya Generaal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare oo ka hadlayay weerarkii maxaabiis al-shabaab ah ay ka fuliyeen gudaha xarunta xabsiga dhexe ee Muqdisho ayaa sheegay in xogta uu helo ay sheegayso in maxaabiistu ay ku dagaalameen bistoolado iyo bambooyin maalmo ka hor lagu sii diyaariyay halka ay ku xirnaayeen sidoo kale Generaal Tuuryare ayaa tibaaxay in al-shabaab kaliya aysan ku dagaalamin hub ay ka disheen ciidamada ku sugnaa gudaha xabsiga dhexe ee Muqdisho balse ay ku dagaalameen hub halkaasi lagu sii diyaariyay xogahan helayo si gaar ah helayo waxa weeye in bistoolado iyo bambooyina meesha lala galay oo maalmo ka hor ku jiray askarta waliba la dilay askari koowa bistoolada lagu dilay qora askari laga qaato laguma dilin kadib aan qoriyay laga dishay ay ku sii badsadeen marka intaas kaliya ma ahan marka dadka dhintay tiradiisa la fiirsho marka dagaalku saacadaha uu socdo la fiirsho marka xogaha la helayo la fiirsho meesha ilaa 8 bombo iyo 4 bistoolad in la geliyay oo dadkii al-shabaabka ayo qaarna gudoomiyaal looga dhigay maxaabiista iyo ku-xigeenno looga dhigay qaarna inta la sahashaday banaanka u soo baxeen oo xerada wareegayeen oo dadka u adeega la yiri waxa soo dhan ayaa iyo ciidamadan cusub oo meesha la keenay iyo habacsanaanta meesha ka jirta iyo dadka meesha maamuloon fahansaneen dadka ay maamulaan oo xabsiga ku jira qatartooda waxa soo dhan marka la isku daro waxaan isleeyahay suuragal ma aha in waana sababtu waa taas waxa dhacana suuragal ma aha in laba qor kaliya lagu sameeyay wax ka badan baa jira geesta kale taliyihii hore ee nabad sugidda Soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamay in maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe ay ku jiraan xubno shabaab ah oo qatar ah isagoo sheegay in aysan ku filnayn inay ilaaliyaan ciidamada asluubta Soomaaliyeed kuwaas oo loo tababaray inay ilaaliyaan maxaabiista ku eedeysan dambiyada fudud meeshaas marka la soo koobo waxaa ka jira inaan la isgeladsiin layacbaa ka jira wax anaga intii aan xafiiska joognay anaga wax badan oo aan shaqo badan aan dadka meesha jooga kala qaban jirnay meeshaasna ciidan asluubahee loo tababaray dad mukhaadaraad iyo waxaas camal loo soo xiray ilaalintooda kaliya kuma filna eedaha kaloo amniga inay meesha xabsiga ku yeeshaan dad uga soo warrama oo waardiyaha qayb ka haya oo dadka weliba shabaabka ahee xabsiyada waaweyn ku xukuman ee halista si gaara dad u ilaasho dadkii soo qabtay ewel ee xogtooda keenay ee halistooda og ee eedaha amniga kamida in meeshaas qayb kamida loo soo bedelo waayo ayagaba asluubha laga dhigay laakiin umalayn maayo in ciidamada asluubta kaliya inay oo loo tababaray dad iska caadi oo maxaabiis caadi iyo dad siyaasadeed iyo waardiyintooda inay dad dilayaal oo al-shabaab oo inay ayagu fahamka leeyihiin kuna aadaan umalayn maayo hadalka taliyihii hore ee nabad sugidda Soomaaliya ayaa imaanaya xilli maalmo ka hor maxaabiis al-shabaab ah ay ka dhex dagaalameen gudaha xarunta xabsiga dhexe ee Muqdisho kusimaha ra'iisul wasaaraha dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa kulan looga hadlay dardargelinta baaritaanka weerarkii xabsiga dhexe waxa uu la qaatay guddigii loo magacaabay dhacdadaas Maslax Abuukar Xaaji ayaa dhameystiray warkan siyahayaha xilka ra'iisul wasaaraha dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa waxa kulan uu la yeeshay guddigii uu u magacaabay baarista dhacdadii ka dhacday Isniintii aynu ka soo gudubnay xabsiga dhexe ee Muqdisho ee sababtay dhimashada maxaabiis iyo askar ka tirsaneed ciidanka asluubta Soomaaliyeed
isagoona si gaar ahaaneed uga codsaday guddigan in ay keenaan natiijo ay ku wada qanci karaan guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed. Mahdi Maxamed Guuleed ayaa waxa uu si gaar ahaaneed u faray in natiijooyinka lagu saleeyo xaqiiqda jirta oo aan marnaba la dafirin. Siihayaha wasiirka cadaaladda Xasan Xuseen Xaaji ayaa waxa uu warbaahinta uga warbixiyay shirkaasi iyo qodobada looga hadlay, isagoo si gaar ahaaneed u sheegay in guddi hoosaad farsamo oo ka shaqayn doona dardargelinta howlahan la magacaabay. maanta waxaa kulan yeeshay guddigii ra'iisul wasaar ku-xigeenka ahna siihayaha xilka ra'iisul wasaaraha shir gudoominayay. guddiga waxaa ka soo qayb galay guddiga dhan. waxaa looga hadlay sidii loo samayn lahaa baaritaan dhab ah dhacdadii ka dhacday xabsiga dhexe. waxaan kala qaadanay jadwalkii baaritaankii iyo habkii loo samayn lahaa. waxaan magacaabnay guddi farsamo oo arrintan ka shaqayn doono. waxaan rajaynaynaa in guddigan shaqo ballaaran iyo baaritaan ballaaran ka qabto shaqadii iyo shaqaaqadii ka dhacday xabsiga, soo gudbiyo guddigan waxyaabihii ka ratibmi lahaa faldambiyeed ahaataa iyo dabacsanaan ahaataba wixii meesha ka dhacay in guddigan soo diyaariyaan. waxaan lagu ballamay 10 bere oo ku qorneed dekreetadii ra'iisul wasaaraha gudahooda in baaritaan hufan guddiga keenaan. guddigani shaqadiisa waa bilaawday. Dagaalkii ka dhacay gudaha xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho waxa uu ahaa mid ilaa iminka ay su'aalo badan iska weydiinayaan guud ahaanba bulshada Soomaaliyeed, iyadoona inta badan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay soo jeediyeen in dhacdadaas aysan noqon dhacdooyin horey uga dhacay dalka oo guddiyo loo saaray wax natiijo ahna aysan ka soo bixin. Dumaasanta maslax ciidamada ammaanka ee magaalada Dhuusamareeb ayaa gacanta waxay ku dhigeen jaad qaab qarsoodi ah looga soo qaadi rabay garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb. Maxamed Cabdiweli Tuuxow ayaa warkan noo soo diray. ciidamada ammaanka ee maamulka Galmudug ayaa waxay garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb ay ku qabteen boolisooyin ay ku jiraan qaad saraakiil ka tirsan laamaha amniga ee magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa sheegay in boolisooyinka qaadka loo waday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. sidoo kale saraakiisha ayaa sheegay in baaris rasmi ah lagu sameyn doono dadkii soo galiyay qaadka magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. qaadkan ayaa la sheegay in laga keenay meelo ka baxsan deegaanada Galmudug iyadoona qorshuhu ahaa sidii qaadka loo geyn lahaa magaalada caasimadda ee Soomaaliya ee Muqdisho. wararka ayaa waxay sheegayaan in laamaha ammaanka ay gubi doonaan qaadka lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Maxamed Cabdiweli Tuuxow, idaacadda Kulmiye, Dhuusamareeb. maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay in fatahaadaha webiga Shabeelle ay burburiyeen dhul beereed fara badan oo gaaraya 5,000 oo hektar. Bashiir Cali Daahir ayaa warkan inoo soo diray. wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Xaaji Cabdulle Isgow ayaa ka hadlay khatarta fatahaada webiga Shabeelle iyo dalagyadii ay baabi'iyeen fatahaada webiga Shabeelle deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe ee dhul beereedka ku yaalay. wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa uu tilmaamay in haatan dalagga marka laga soo tago ay baabi'iyeen fatahaada webiga Shabeelle cabsi weyn laga qabo in magaalooyinka ee biyaha webiga Shabeelle ay galaan inta badanna magaalooyinka qaarna ay goodoon ay yihiin, gaar ahaan magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle oo tilmaamay inaysan haatan wado gaadiid gala aysan jirin, biyaha webiga Shabeellena ay ku heerarsameen. marka wax lagu ceento xataa abeeraadana ma jiraan. meeshaas dhulka ay biyaha qaadeen wuxuu dhan yahay haddii la isku soo celceliyo 500,000 oo hektar balcad ilaa iyo 7 jasiira oo mahday ka waqooyi ah. meel aan leeyahay maanta meeshaas lagu ceymaha ama meeshaas yaro ceymata ma jirto. halis waxaa loogu jiraa maanta Jowhar in ay beledka biyo qaadaan. haddaba go'doon ku jiraa magaalada Jowhar ay ku jirtaa, baabuurna laguma geli karo, diyaaradna in helicopter lagu tagayo ma ogi Jowhar. haddii airportka Jowhar la tago airportka iyo magaalada 15 kilomitir camal wax ay isu jiraan,
intana biyaa fadhiya jidkii caadiga ahay oo ka baxay jowhar oo ma hadday aaday haddii aad fiirisid webigii asigaad umalaysaa jidkiiba naftiisa webigii u eg oo xataa ninkii airboortka ka yimaado jowhar ber uu ku yimaado ma laha marka heer dhibaato ilaa intaas ayaa maraysaa ay dhibaatada oo fatahaadaha ay maanta ay taagan tahay shabeellaha dhexe ama hirshabeelle khadkadta aan hadda ka baqanayno inay dhacdo waxa waaye dalag waa ka quusanay duunyadii waxay daaqda ma leha dadkii ayaan cabsanayna ay magaalada biyaha soo galaan magaalooyinka ay biyaha qaadaan warkaan ka soo yeeday wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle cali xaaji cabdullaahi zgow ayaa wuxuu imaanayaa xilli ay sii kordhayaan fatahaadda webiga shabeelle deegaanada gobolkan shabeellaha dhexe bashiir cali daahir raadiyo kulmiye jowhar halka warkaas idinkala socotaana waa KNN. warshada isbuunyada Dubai kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso. dowladda Shiinaha ayaa waxa ay cadaadiska ku sii kordhinaysaa maamulka Taiwan waxaana durba Shiinaha uu bilaabay in dhaqdhaqaaq militari uu ka sameeyo xuduudda u dhaxaysa maamulkaas iyo Shiinaha intiisa kale. xukuumadda Shiinaha ayaa aad uga carootay booqasho dhawaan uu maamulkaasi ku tagay xogayaha dhinaca caafimaadka ee dowladda Mareykanka Mr. Alex. Beijing ayaa wax ka badan 20 mar fargelin waxa ay ku sameysay biyaha iyo hawada maamulka Taiwan sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda maamulkaasi Mr. Joseph. wasiirka ayaa hadalkiisa waxa uu intaasi ku daray in dowladda Shiinaha ay ku xadgudbayso xuquuqda Taiwan. dhinaca kale hogaamiyaha wadanka Shiinaha Xi Jinping ayaa ku hanjabay in uu ilaalin doono xeerarkii u gaarka ahaa ee maamulkaasi Taiwan loo sameeyay. ugu dambayna qaramada midoobay ayaa waxa ay ka digaysaa qalalaaso hor leh oo sii galo wadanka Lebanon kaas oo dhawaanahan bal la daala dhacayay dhibaatooyin kala duwan oo ay kamid yihiin dhinaca siyaasadda oo jahwareer badan uu ka taagan yahay. ergeyga jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa u qaabilsan wadanka Lebanon Mr. Jan Kubis ayaa waxa uu madaxda dalka Lebanon ugu baaqay in xaaladda dalkaasi aanay faraha ka sii bixin oo si degdeg ah loo qabto doorasho si looga fogaado dhibaatooyin kale oo culus kuwa oo hadda ka jira wadanka. waxa kale uu sheegay ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan wadankaasi Lebanon in si degdeg ah loogu baahan yahay in loo gaarsiiyo gargaar bini'aadanimo wadankaasi kaas oo uu tilmaamay inay xilligan muhiim u tahay dadka reer Lebanon oo hadda ku jira xaalada adag oo dhinaca bini'aadanimada ah.